bay ku jiraan yaa laga noqon. dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale ka qarxay duleedka caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya. Faahfaahin kala duwan ayaa laga helayaa dagaal maanta ka dhacay duleedka Koonfureed ee magaalada Muqdisho, halkaas oo isku farsaaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab oo halkaas yimid. Dagaalka ayaa si gaar ah ugu dhacay xaafadda Albirri oo ku taala inta u dhaxaysa deegaanka Siinka Dheer iyo Garisbaale, halkaas oo isku farsaareen labada dhinac kadib markii Al-Shabaab ay soo qaadeen weerar gaadma. Dad goobjooga ayaa xaqiijiyay in xubnaha Al-Shabaab ay beegsadeen ciidamo ka tirsanaa kuwa nabad sugidda oo ku sugnaa halkaasi iyagoo ku qaaday weeraro gaadma kaas oo geystay khasaare kala duwan. Kadibna waxaa halkaasi ka qarxay iskoorimaad oo muddo daqiiqada oo ka socday aagga Albirri. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya inay jiraan askar ku dhaawacantay ee dagaalka kadib markii Al-Shabaab ay soo qaadeen weeraro gaadma oo dhexmaray iyaga iyo ciidamadii halkaasi joogay ee ka tirsanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Israsaaseen iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo la adeegsaday. Ugu dambeyntii askar ku dhaawacantay khasaarihii soo gaartay sababtay inay askarta qaar ay dhaawacmaan, kuwaas ugu dambeyntii oo la soo xaray isbitaalka Muqdisho si loogula tacaalo xaaladooda caafimaad. Si la mid ah Al-Shabaab weerarka geysatay ayaa la soo wariyay inay carreen isla markaana ay meesha ugu tagtay gacan isgaarsiin ah oo ay ku wada xiriirayeen, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee Soomaaliya. Xaaladda goobta ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in iminka ay degan tahay, waxaana ka socda dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isku fidiyay meesha ay wax ka dhaceen kadib markii Al-Shabaab weerarka ay soo qaaday. Ciidamo kale oo gurmad ah oo ka baxay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya gudaheeda ayaa gaaray aagga magaalada, iyagoo sidoo kalena adkeeyay ammaanka ee halkaasi kadib markii Al-Shabaab weerarka ay ka soo qaadeen halkaasi isla markaana iskaga carreen. Al-Shabaab ayaa marar kala duwan si dhuumaaleysiga ku yimid wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, waxaana ka mid ah meelaha horey loogu arkay deegaanada Lafoole iyo Xaawo Cabdi ay ku sameeyeen weeraro arbushaad ah. Si la mid ah waxaa habeen tageen ceelasha biyaha iyaga oo damiyay leerarkii ku xirnaa ee jidadka waaweyn ee deegaanka, iyagoo xilligaasi aan la kulmin wax iska caabina. Si kastaba markii dambe dowladda Soomaaliya oo qaaday tallaabooyin culus ayaa ciidamadii ugu badnaa geysatay ee daafaha caasimadda, kuwaas oo ka hortagtay dhaqdhaqaaqyadii Al-Shabaab iyo inay qaraxyo soo geliyaan gudaha caasimadda, halka Al-Shabaabna ay weli dadaal ugu jirto sidii ay sidoo kale weeraradeeda ay u noqon lahaayeen kuwo mid joogta u sii socda, halka dowladda Soomaaliyana iyadana ay wado dhinaca joogta taasoo ay kula dagaalamayso Al-Shabaab.